waxbartaan 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 barwaaqo gaarane. dowlad la'aantii aynu soo marnay siyaabo kala duwan ayay u dhaawacday dalkeenna. burburka ku yimi waxbarashada ayaana ka mid ahayd dib u dhacyada ina soo gaaray. tani waxay horseeday in waxbarashadii ay gasho xaalad ka baxsan gacanta dowladda iyadoo la isticmaalayay manaahij kala gedisan oo isku dhex yaacsan. dalkeennu waxa uu baahi weyn u qabay nidaam waxbarasho oo ay dadka Soomaaliyeed leeyihiin ayna diyaarisay dowlad Soomaaliyeed. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo garowsan waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran in ubadka Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho iyo mustaqbal wanaagsan ayaa waxa uu dadaal badan geliyay dib u soo nooleynta, mideynta iyo tayeynta nidaamka waxbarasho ee dalka. dowladdan muhiimadeeda koowaad iyo labaadba waxa weeye waxbarashadu waxa weeye furaha nolosha. bini aadanku waxay ku kala hormaraan haddaad doonayso waddan inaad ogaato horumarkiisa iyo inta uu hore u qaado waxay ku xiran tahay waxbarashada iyo quality tayada uu siiyo iyo ahmiyadda uu siiyo waxbarashada iyo inta caruur uu soo saaro ayay ku xiran tahay. doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib si loo fuliyo ballanqaadkii madaxweynaha waxaa tan iyo sanadkii 2017 ay dowladdu saddex laabtay qoondada miisaaniyadda waxbarasho ee dalka oo horey u ahayd eber 67 iyadoo haatan la gaarsiiyey ku dhowaad 10% waana isbeddel weyn oo ka muuqdo koror lixaad leh. waa cusub oo u beriyay waxbarashada Soomaaliya ayay ahayd markii uu dhowaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo daahfuray manhaj midaysan oo leh waxbarasho tayo sare leh kaas oo meesha ka saaraya manhajyadii qalaad ee kala duwanaa kuwaas oo 30 sano ee u dambeeyay ay wax ku baranayeen ubadka Soomaaliyeed. manhajka cusub ee ay diyaarisay dowladda Soomaaliya waxaa ka faa'iideysan doona arday kor u dhaafaysa 300,000 oo wax ku barta 915 iskuul oo ku yaala gobollada dalka. farqiga ugu weyn ee manhajka cusub waa luqadda waxbarashada. ka hor diyaarinta manhajkan uu daahfuray madaxweyne Farmaajo waxa aad u yaraa buugaagta ku qoran af Soomaaliga, sidaa darteed dugsiyadu waxay isticmaalayeen buugaag kala duwan oo ku qoran luqado ajnabi ah. buugaagtaasi ayaa laga keeni jiray in ka badan 10 dal waxayna ay u badnaayeen kuwa ku qoran luqadaha Ingiriiska iyo Carabiga. nasiib wanaag hadda luqadda waxbarashada dugsiyada hoose dhexe ee dalkeenna waxay noqonaysaa af Soomaali waana guusha laga dhaxlay dadaalkii uu muujiyay madaxweyne Farmaajo muddadii uu xafiiska joogay. mudan madaxweyne waxaa maanta sharaf noo ah in aad dugsiga Maxamuud Mire oo aad taqaanid taariikhda uu leeyahay aad maanta nagu soo ziyaaratid innagoo ujeeddadu ay tahay inaan ku daafurno howl wasaaradda waxbarashada maalmahan ay aad ugu taxalluqsaneed adiguna aad xogaal u ahayd naguna dhiirigelisay waana kaaga mahad celinaynaa dhiirigelinta iyo maanta meesha aadna soo gaarsiisay. dowladda ayaa manhajka cusub ku soo dartay maadooyin muhiim ah sida kuwa ka hadlaya wadaniyadda iyo nabadda si dhalinyarada Soomaaliyeed loogu abuuro jacaylka dalkooda hooyo iyo kaalintooda ku aadan nabadgelyada. ka sokow diyaarinta manhajka cusub dhanka kale dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ayaa ku guuleysatay in waxbarasho lacag la'aan la siiyo 10,000 oo ka mid ah caruurta Soomaaliyeed. xaqiiqatanna runtii sidaa aad sheegtay 3 sano hadda ugu dambeysay waxaan la wareegnay 24 iskuul waxaan wax barnaa 65,000 oo arday ah insha Allahna waa kordhinaynaa maxaa yeelay waxaan ognahay ardadeenna intooda badan inaysan iskuul aadin aysan tabartooda lahayn marka waxay noo tahay runtii muhiimad weyn iyo noo tahay ama juhdi weyn aan gelino in aan ka dhigno wax la awoodi karo ama cunug walba oo aanan awood u lahayn iskuulada inay aadaan private-ka ah inaan u diyaarino waxbarasho mustaqbal leh inaan u diyaarino. rajo weyn ayaa laga qabaa in dalku dib ugu soo laabto heer dowladda Soomaaliya ay buuxiso kaalinteeda ama mas'uuliyaddeeda kaga aadan waxbarashada sida in la helo waxbarasho bilaash ah oo loo siman yahay. manhajka cusub ee la daahfuray iyo dadaalka madaxweyne Farmaajo ayaa haddaba sare u qaaday rajada isla markaasna farxad geliyay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan macallimiinta iyo ardayda. waxbartaan 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 barwaaqo gaarane.